ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay jabiyeen xubnay ka tirsan ururka Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday hoteelka Xayaat ee ku yaala caasimadda Soomaaliya kadib dagaal dhig badan ku daatay. Ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay gulufkaasi oo socday muddo 30 saacadood ka badan, inkasta oo warbaahinta gudaha ay sheegayso in dhimashadu intaasi ka badan karto. kooxaha weerarka geystay ayaa maalintii Jimcaha ahayd u adeegsaday walxaha qarxa si ay gudaha ugu galaan hoteelka Xayaat ee magaalada Muqdisho ka hor inta aynan la wareegin gacan ku haynta hoteelkaasi. Al-Shabaab waxa ay sheegatay markiiba mas'uuliyadda weerarkaasi halista badnaa. Ciidamadu hadda waxay soo aftireen weerarka, raggii hubaysnaana waa ay dhinteen. Ma jirto wax rasaas ah oo ka dhacday dhismaha saacadii la soo dhaafay. sidaasi waxa sheegay sarkaal magaciisa la qariyay oo la hadlay wakaalada wararka AFP. ayaa si xoogan u burburay kadib markii habeenkii Jimcaha iyo Sabtida ay ciidamada ammaan ku duqeeyeen bambooyin xoogan iyadoo muuqaalada laga soo duubay ay muujinayaan holaca iyo qiiq ka baxay saqafka hore ee hoteelka Xayaat ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaan wali si rasmi ah faahfaahin uga bixin khasaaraha guud ee ka dhashay weerarka iyo sida uu ku bilowdayba, maadaama ay dowladdu sheegatay inay xalay xilli dambe soo afjartay weerarkii kooxaha hubaysan ee ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab ay ku haysteen ku dhawaad 30 saacadood hotel Xayaat ee Muqdisho, kaasi oo dad badan laga soo badbaadiyay. weerarkani ayaana noqonaya weerarkii ugu horreeyay Al-Shabaab ay ku gasho hotel ku yaala Muqdisho tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh dib loo doortay 15 bishii May ee sanadkani. Xasan Sheekh madaxweynaha Soomaaliya ayaa ahmiyadda koowaad ka dhigay in laga adkaado kooxda Al-Shabaab, hase yeeshee dowladdu wali ma qaadin wax tallaabo ah oo ka dhana kooxdan, mayna soo bandhigin qorshe dagaal oo ay ku wajahayso xarakada Al-Shabaab oo gacanta ku haysa deegaano badan oo ka mid ah koonfurta waddanka Soomaaliya.